kula wacan wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan. Halkani waa Cabdullaahi Yar Official. Muuqaal cusub ayaan idin wadaa. Fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe inoo dheh, like-na inoo saar, share-tana ha ka ilaawin. Aanu ku bilownay iyadoo maalmahanba la hadalhayay haddii madaxweyne Farmaajo uu meesha ka huleelay. Haddaba maxaa qabsan doona Fahad Yaasiin oo ahaa xildhibaan laga soo doortay maamulka Hirshabelle isla markaana laga hor istaagay kursigiisa, taa oo caqabad fara badan ay ka dhalatay ayadoona ugu dambeyn maxkamadda sare uu dacwad u gudbiyay ayadana maxkamadda ay dib isaga soo celisay. Haddaba saaka oo khamiis ah waxa ay shaashadaha soo qabanayeen Fahad oo ciidamo fara badan oo kuwa haramcad ay ku geedaaman yihiin, kuwaasi oo markaasi laba container dhexdooda kala dhaxbaxaya. Wararka qaar ayaa waxay sheegayeen in Fahad Yaasiin loo dhaadhicinayo xabsigii oo in muddo uu ka talin jiray ee godka Habar Khadiijo. Warar kale ayaa sheegaya in Fahad Yaasiin maxkamad la soo taagi doono. Sidoo kale hadalhaynta ayaa aad u fara badan. Wararka qaar ayaa sheegaya in Fahad Yaasiin uu kursigaasi ka tanaasulayo oo booskaasina lagu bedelayo ninka ilma adeerka yihiin ee Faarax Cabduqaadir. Si kastaba ha ahaatee, ilaa hadda ma cadda wararka ka soo baxaya Fahad Yaasiin iyo xiritaankiisa. Haddaba haddii Fahad Yaasiin oo ahaa madaxweynihii hore ee xilka ka digay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la taliyihiisii horena uu ahaa madaxii sirdoonka qaranka ee dowladda Soomaaliya NISA oo waxyaabo fara badan lagu tabayo, iyadoo mucaaradka hadda talada la wareegay ay horaan u sheegeen inuu Fahad yahay milkiilaha dowladda iminkaasi jirtay. Fahad ayaa waxyaabo fara badan ayaa lagu haystaa sida wararka hoose aanu ku helino. Waxyaabaha lagu haysto ayaa waxaa ka mid ah sida dilkii xildhibaanad Aamina iyo sidoo kale gabadha la laayahay Ikraan Tahliil, taasi oo ay ugu weyn tahay in gabadhaasi sirteeda iyo waxyaabaha uu Fahad ka og yahay laga soo saaro. Ma cadda wararkaasi, balse waxaan ogaan doonaa halka ay u biyo shuban doonto. Halkani waa Cabdullaahi Yar Official. Fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe inoo dheh, waadna ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.